wasaaradda dastuurka iyo arrimaha federaalka ee Puntland ayaa soo gabagabaysay kulan looga hadlayay habqaybsiga kheyraadka dabiiciga ee Puntland oo maalmihii ugu dambeeyay ka socday magaalada Garowe. haddaba war arrinka ku aadan waxa Garowe ka soo diray wariyaha RTN kaga soo waramay Cabdulqafaar Cabdirashiid Maxamed. tababarkan ay wasaaradda dastuurka Puntland soo gabagabaysay ayaa qayb ka ahaa tababaro dhowr ah oo wasaaraddu muddooyinkanba soo waday waxaana ay dhammaantood ku qotomeen sidii bulshada Soomaaliyeed loo fahansiin lahaa nidaamka federalismka maadaama uu yahay hab maamulka cusub Soomaaliya. Shamso Sheekh Xasan oo ah la taliyaha dhanka shuruucda hay'adda Max Plan Foundation isla markaana bare ka ahay tababarka ayaa ka warantay habsami socodkii muddadii uu socday tababarka iyo sidoo kale dhinacyadii kala duwanaa ee ka soo qayb galay. dadka ka qayb galayna waa badana dadka saraakiisha sarsare Puntland wasaaradaha kala duwan wasaaradda dastuurka ayaa u ah wasaaradda maamusho oo isu wada keentay laakiin wasaaradaha ka qayb galay maaliyadda wasaaradda amniga wasaaradda haweenka wasaaradda maaliyadda wasaaradda qorsheynta wasaarado badan ayaa ka qayb gala si dadkii ay qof walba cutubkii qoseeyay uu si fiican ugu sii fahmo ilaa 25 qof oo agaasimayaal guud iyo agaasimayaal iyo dad madax hore ah dad la taliyaal ah waa ka qayb gala agaasimaha guud ee wasaaradda dastuurka arrimaha federaalka iyo dimuqraadiyeynta Puntland ayaa isna dhankiisa ka waramay qaybihii kala duwanaa ee uu ka koobnaa barnaamijkan baahinta nidaamka federaalka hay-adan waxa la yiraahdaa wada barnaamijkan waxa wada wasaaradda dastuurka iyo arrimaha federaalka iyo dimuqraadiyeynta waxa la wada hay'adda Max Plan Foundation for International and the Rule of Law oo hay'ad Germany barnaamijkan waa federalismka in dadka Soomaaliyeed mostly la fahamsiiyo waxa federalismku uu yahay maadaama uu yahay maada inagu cusub dalkeena iyo dadkeenaba ku cusub waa workshopkii afraad ee wasaaraddu ay qabato iyo hay'addu waxa la bilaabay 24 July 2017 markii hore waxa laga bilaabay baahinta awoodaha iyo nidaamka federaaliga in dadka la fahamsiiyo waxaan rabnaa inay Puntland u noqoto road model maamulada kale si ay TOT ugu noqdaan hadhow macallimiin ugu noqdaan gobolada kale oo arrimaha federalismka u fahamsiiyaan maadaama iyadu ay bilowday howlaha federalismka inay leen u bixiso ama dariiqii looga bixi lahaa waxa kan nidaamka federalismka ay u keento wuxuu dhacay 24 September 2017 waa xiriirka iskaashiga ka dhaxeeya xukuumadaha iyo xalinta khilaafaadka wakiil labaad weey kii saddexaad wuxuu dhacay isbarbardhigga nidaamka federalismka ee Soomaaliya nidaamkee la qaadanaya habkee federalism oo la qaadanaya qaabkee dariiqee loo maraya si la isu fahmaya wuxuu ahaa workshopkaas oo ahaa kii kalena kii u dhameeyay oo ku xigay kan wuxuu ahaa nidaamka cashuuraha federalismka qaabka cashuuraha loo qaadayo kan u dhameeya maanta aynu ku jirno waxa weeye qaabka kheyraadka dabiiciga loo qaybsan lahaa wixii natural resource-ka oo ilaahay dalka uu siiyay oo ku manaystay qaabkii loo qaybsan lahaa marka waxa la rabaa nimankan 25 qofood baa lagu bilaabay 25 ka qofood wasaaradaha Puntland oo dhanbay ka kala socdaan waa dad khubaro oo aqoon lagu soo xushay waxaanu rabnaa inay example u noqdaan maamulada inta kale oo dhan waa noo soconaya waa kii ugu dhameeyay way waxa noo haray 4 workshop oo federalismka lagu soo gabagabeynayo si ay dadkanu ay u noqdaan road model maamul goboleedyada kale Cabdulqafaar Cabdirashiid Maxamed RTN TV magaalada Garowe.